maamulka garoonka diyaaradaha degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ka hadleen dib u habeyn lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Warbixinta warkan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere. Gagida dayuuradaha ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa laga dareemayay bilihii u dambeeyay horumar ballaaran iyadoona laga sameeyay waxyaabo kala duwan oo indhaha bini'aadanka soo jiidanaya gudaha eelaboodka ee magaalada Kismaayo. Maareeyaha eelaboodka magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Jagadoon oo xafiiskiisa shir jiraayad ku qabtay ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta bal waxyaabaha iyo qorshayaasha kala duwan ee maamulka eelaboorka uu la maagan yahay gagida diyaaraduhu ay ku dagaan ee magaalada Kismaayo. iyo wareegtidii cusbeed ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda Jubbaland taas oo lagu magacaabay maamulka garoomada dawladda Jubbaland inay yihiin hay'ad madax bannaan waxaan guda galnay in aan soo saarno ama aan dejino qorshe cusub kaasoo loogu talagalay horumarinta guud ahaanba adeegyada iyo soo nooleynta garoomada dawladda Jubbaland. qorshaha waxaa ka mid ah qaybtiisa koowaad in aan bilaawno gebi ahaanba shaqaaleyn guud ahaan in garoomadu ay helaan shaqaale u shaqeeya oo qabta howlihii garoomada isla markaana shaqaalahaas oo ah shaqaale rasmi ah helaan mushaaraadkoodii. sidaa daraadeed waxaan guda galnay in aan la xiriirno nidaamka shaqaaleynta World Bank ama bangiga adduunka mushaaraadka uu bixiyo oo dawladaha uu ku saacido dhanka shaqaalaha kubcintooda aqoontoodii iyo mushaaraadkoodii inay helaan. waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono nidaamka hawsha dardargelinteeda waa bilownay. qaybta labaad waxaan rabnaa in aan tagno dhammaan garoomada gobolada iyo degmooyinka dawladda Jubbaland inaan soo booqano si aan u aragno baahidoodii iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. maxaa yeelay waxaan rabnaa in garoomadii dib loo soo nooleeyo. shacabkii baahi badan bay u qabaan. mas-uuliyiintii dawladda waxay rabaan in ay dhammaan degmooyinka ay tegi karaan ayagoo waajibaadkoodii gudanayo. sidaa daraadeed mas-uuliyadana saaran waxay tahay in dhammaan degmooyinka leh garoomada inaan booqasho ku tagno xaaladaha garoomaha ama elbarada aan soo qiimeyno aan la kaashano cid kastoo gacan naga siinayso. dawladda Jubbaland hadafkeeda koowaad wuxuu yahay in aan sameyno isku tashi oo wixii anaga aan qabsan karno marka hore aan qabsano anagoo kaashanayna dawladeeni iyo guud ahaanba dadweynaha deegaanka ama maamulada dawladda hoose ee degmooyinka dhammaantood in dadka ay dhanka nadaafadda dayactirka iyo maamulka garoomada annagoo qorshe ahaan istiraatiijiyada iyo hanaankii loo mari lahaa dejinay. waxaan insha Allah aan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan in aan wax badan ka bedelno oo aan mar dhow heli karno dhammaan local flightydii duulimaadkii gudaha dalka ayadoo Kismaayo iyo Dolow Kismaayo iyo Garbahare Kismaayo iyo Baardheer Kismaayo Afmadow Kismaayo Doble dhammaan eelaboorada gudaha dalka in aan isku furi karno shacabka iyo dawladaba ay heli karaan saacad kastaba duulimaad iyo adeeg ay u baahan taasaan ballan qaadayna. eelaboodka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa wuxuu yahay mid iminka isticmaalkiisu ay ku tirsan tahay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed. eelaboodka magaalada Kismaayo ayaa iminka wuxuu yahay mid si toos uga madax bannaan wasaaradda gaadiidka ee Jubbaland iyadoona gagida dayuuradaha ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose laga dareemayo dhanka bilicdeeda inay si weyn u soo wanaagsanaatay. Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere idaacatu wa telefisyon SBC Kismaayo.